magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland ayaa maanta lagu aasay Allaha u naxariistay marxuum Xasan Abshir Faarax ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo dhawaan ku geeriyooday wadanka Turkiga. salaada janaasada ayaa lagu dukaday garoonka diyaaradaha magaalada Garowe waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo halkaan u yimid ka qaybgalka aaska marxuumka. gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada ka jira dalka dhammaan dadkii ka qayb galay janaasada iyo aaska marxuumka ayaa la uga bariyay in jannadii firdawsa uu ka waraabiyo waxayna wada qireen kaalintii uu ku lahaa dhismaha dawladnimada iyo adeegida qaranka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare Xasan Abshir Allah u naxariistay waxa uu ahaa nin Soomaaliyeed haddii shaqo qarannimo ay tusaale leedahay tusaalaha ugu mudan wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Xasan Abshir Allah u naxariistay gobol walba iyo shaqo walba oo qof mas'uul ah uu soo qaban karo ama ciidan ama shacab ama ra'iisul wasaarenimo ama heer federaal ama heer dawlad goboleed meel aanu ka soo shaqayn kale ilaa hadda waxa uu taagnaa sidii Soomaalida isugu keeni lahaa waxa ugu yar oo uu leeyahay waxay tahay inaan muujino dadaalkaas uu Soomaali ku bixiyo qoyskii uu ka baxay waxaan leeyahay aabba Allah u naxariisto adeer Allah u naxariisto abti Allah u naxariisto walaal Allah u naxariisto waxaan kaga mahad celinayaa inaad intuu noolaa Soomaali aad la qaybsateen waqtigii uu idinkeenu ku bixi lahaa annagoo lagu bixiyey oo shaqadiisa iyo wuxuu qaban jiray uu tusaale noo ahaa oo ku soo tababaranay wax walba oo dawladda federaalka uga aadan ayaan diyaar u nahay haddii wax daba jiro ama ciddayn kule ay jirto waxay dawladda federaalka diyaar u tahay inaan ka guulanno mas-uuliyaddan shacabka reer Puntland oo ugu horreeya madaxweyne Saciid iyo dhammaan ismada iyo salaadiinta idinkana si gaar aan idinkugu mahad celinayaa sida sharafta leh oo ay wadaagsanteen u maamuusteen halyeegaas Soomaali ka baxay ilaahay qabriga u waasixiyo idinkana ilaahay ajriga xasanaad idinka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka.